Mele Zenawi oo ahaa hogaamiye dalkaasi ka talinayay 21 sanadood ee la soo dhaafay waxa geeridiisa ay ahayd mid lama filaan ah kadib markii cisbitaal ku yaala dalka Belgium la sheegay in uu ku geeriyooday waxa in badan oo kamid ah shacabka dalkaasi Ethiopia ay muujiyeen murugo waxaana dhinaca kale dadweynaha Soomaalidu ay si weyn indhaha ugu hayeen geerida Mele Zenawi iyo saameynta ay ku yeelan karto arrimaha Soomaaliya hogaamiyaasha Soomaalida ee siyaasadda iyo shacabkuba waxa ay si weyn u hadal hayeen geerida Mele Zenawi oo xalay meydkiisii dib loogu soo celiyay magaalada Addis Ababa isagoo laga soo qaaday magaalada Brussels ee dalka Belgium waxaana ay dhagta iyo indhahaba ku hayaan dadka Soomaalidu qaababka ay warbaahintu uga faalloonayaan geerida Mele Zenawi. Mele Zenawi waxa uu qayb kamid ah noloshiisa ku qaatay dalka Soomaaliya 8 waxa uu waxbarashadiisii jaamacadeed qaarkeed iyana ku qaatay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed si la mid ah hogaamiyaal kale oo Afrikaan ah xilligaas oo uu kamid ahaa kooxihii mucaaradka ee doonayay in ay xukunka dalkaasi kala wareegaan hogaamiyihii kaligii taliska ahaa ee Mengistu Haile Mariam waxa uu ahaa Mele Zenawi hogaamiye ay dawladdii Maxamed Siyaad Barre u arkaysay in uu dhammayn karo xanuunkii iyo xumaantii ay kala tirsanayeen Soomaaliya iyo Ethiopia markii 1977 uu dagaalku ka dhex qarxay labada dal 1991 markii Soomaaliya ay burburtay waxa Mele Zenawi iyo saaxiibadiisba ay la wareegeen xukunkii dalkaasi ee Mengistu Haile Mariam 1991 markii ay Soomaaliya burburtay waxa Mele Zenawi iyo saaxiibadiisii jabhadeynayay ay la wareegeen xukunkii dalkaasi ee Mengistu Haile Mariam 22 sanadood ee la soo dhaafay Mele Zenawi waxa uu ahaa shakhsi aad u daneeya arrimaha Soomaaliya waxaana la dhihi karaa si isku mid ah ayuu la soconayay siyaasadda dalkiisa oo tiirar adag aan lahayn iyo Soomaaliya oo burbur xoogani uu ka jiray sidoo kale waxa caalamku ay u arkayeen hogaamiye lagala tashan karo siyaasadda Soomaaliya isagoo goobjoog ka ahaa shirarka caalamiga ah ee arrimaha Soomaaliya inta badan looga hadlayay hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa iyaguna ku dhaliilay siyaasaddii Mele Zenawi inay ahayd mid aan wanaagsanayn marka la eego qowmiyadaha Oromada iyo Soomaalida dalka Ethiopia iyo waliba dagaalkii ciidamadiisu ay ku qaadeen maxkamadihii Islaamka Mele Zenawi waxa 21 sano ee la soo dhaafay uu saameyn xoogan ku lahaa siyaasadda dalka Soomaaliya waxaana in badan oo kamid ah Soomaalidu ay u arkayeen in uu qayb ka ahaa burburkii dalka inkastoo isagu uu isu arkayay hogaamiye jecel Soomaaliya in ammaan lagu soo dabaalo Mele Zenawi waxa uu xiriir toos ah la lahaa horboodayaasha siyaasadda Soomaaliya oo marar badan uu kulamo kula qaatay magaalada Addis Ababa waxaana mar uu booqasho gaaban ku tagay magaalada caasimadda ee Muqdisho xilligaas oo ciidamadiisii xoogana ay dalka Soomaaliya galeen dagaaladaasina waxay ahaayeen kuwa lagu riiqmay oo kumanaan kun oo qof ay ku dhinteen aragtida dadka Soomaaliyeed ee gudaha Soomaaliya ku nool ka sokow waxa aragti taas ka duwan iyana qaba Soomaalida u qaxday dalka Ethiopia oo sheegaya in uu Mele Zenawi si wanaagsan u soo dhaweeyay isla markaana ay xuquuq ku yeesheen joogitaanka dalka Ethiopia waxaana dhinaca kale Soomaalidaasi ay sheeganayaan in aanay wax dhiba kala kulmin booliska dalkaasi si la mid ah dalalka kale ee dariska la dalka Soomaaliya Mele Zenawi oo dawladaha reer galbeedku ay u arkayeen in uu yahay ninka kaalinta firfircoon ka qaadan kara la dagaalanka argagixisada geeska Afrika ayaan ilaa iyo hadda la saadaalin karin waxa iska bedeli doona geeridiisa kadib maadaama siyaasadda dalka Mareykanka iyo ciidamadooda militariga ahba ay si joogto ah u fadhiyaan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia xilligan dalka Soomaaliya waxa ka dhacaya isbeddello looga guurayo xilliga kumeel gaarka ah waxaana dadka qaarkii ay soo dhaweynayaan geerida Zenawi oo ay u arkaan fursad siyaasadeed oo dalka Soomaaliya uu ku tallaabsan karo maadaama lagu tuhmayay in uu si adag ugu lug lahaa marxaladihii siyaasadeed ee dalku uu soo maray
haddaba waxaa su'aali ay ka taagan tahay hogaamiyaasha Soomaalida ee khilaafaadkooda lagu xalinayay magaalada Addis Ababa waxa ay mudan doonaan geerida Meles Zenawi kadib maxaase iska bedeli doona siyaasadda Ethiopia ee ku wajahan dalka Soomaaliya.